asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qiimaha badan soo dhawaada sidaa la socotaan muddo ka hor waxaan bilownay inaan ka hadalno wadamada aan markaa isleeyahay dadka soomaaliyeed ee qurbaha ku dhaqan gaar ahaan north america iyo yurub waa ay habboon tahay in caruurtooda ay u raraan annagoo wadamadaasi soo qaadanay dhinacooda wanaagsan iyo weliba waxyaaba ay ku xun yihiin in badan oo idinka mid a waa kasoo falceliseen waxaadna codsateen in aan sii wado barnaamijka isaga ahaa oo wadamo kale oo weliba si specific la codsateen inaan kasii hadalno maadaama ramadaan uu soo galay barnaamij hakad ayaa ku yimid hadda ayay noo soo wargashay inaan wadanka xiga ka hadalno hore waxaan uga soo hadalnay wadanka masar wadanka malaysia iyo weliba wadanka kenya oo runtii aad iyo aad uga soo falceliseen dhinacyo badan oo aan ka taabano oo ay ka mid yihiin waxyaaba ay ku wanaagsan yihiin iyo waxyaaba ay ku xun yihiin wadamadaasna qaarkiina ay ugu raacdeen qaarkiina aad wax kusii darteen maadaama laga yaabo in badan oo idinka mid ah ama aad kusoo noolaadeen wadamadaas kusoo noolaydeen wadamadaasi qaarkiina laga yaabo in aad hadirtaan u guurteen oo aad degan tihiin muuqaalkan waxaan doonaya inaan uga hadlo wadan aad iyo aad runtii u qiimo badan oo ka mid ah wadamada soomaalida ay ugu jecel yihiin inay caruurtooda u rartaan gaar ahaan soomaalida ka guureyso wadamada reer galbeedka marka waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr waxyaabood oo aan isleeyahay waa muhiim inay ogaadaan qoysaska soomaaliyeed ee ka guuraya wadamada qurbaha marka barnaamijku inoo bilaawdo kusoo dhawaada mar kale soo dhawaada asxaabta qiimaha badan sidaa la socono wadanka cumaan waa wadan aad iyo aad u yar wadanka cumaan waxa uu xuduudo la leeyahay wadamada sacuudi arabia united arab emirates ama imaaraadka iyo weliba wadanka yemen population guud ee wadankaasi waxaa lagu sheegaa inay dhanyihiin 4 milyan iyo bar oo ruux inay ku nool yihiin ayaa la sheegaa tirkoobka ugu dambeeyey ee la sameeyey 2022 caasimada wadankaasi waxaa u ah magaalada masqad sidoo kale waxaa jirta magaalo kale oo runtii aad caan u ah oo soomaalidu inta ugu badan ay degto oo la yiraahdo magaalada salaalah magaalooyinka ugu waaweyn wadankaasi waxaan ka xusi karnaa magaalada masqad oo saan hore u sheegay ah caasimada magaalada salaalah iyo weliba magaalada nizwa magaalada ibr iyo dhowr magaalo oo kale oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn wadankaasi cumaan wadanka cumaan wuxuu ka mid yahay wadamada aadka looga tixgeliyo dadka soomaaliyeed qofka wata baasaboorka soomaaliga wuxuu awoodaa markii wadankaasi uu ka dego in viisaha loogu dhifto suldaan qaabuus bin taymuur oo ahaa suldaankii wadankaasi inta muddada soo xukumayay waxaa la sheegaa inuu xiriir wanaagsan la lahaa soomaaliya gaar ahaan dowladda dhexe ee burburtay ee soomaaliya wadanka cumaan soomaalida inta badan ganacsi ayay u tagaan waxaa jira xoolo tiro badan oo la geeyey wadankaasi waxaana la sheegaa maalinkii ugu yaraan in wadankaasi cumaan loo geeyo xoolo soomaaliya laga kaxeeyey ama laga waday oo tiradooda lagu qiyaasay 50 ilaa 80 kun oo neef ayaa si yoomi ah ama maalinle ah uga dego magaaladaasi salaalah ama guud ahaan wadanka cumaan sidoo kale waxaa jira dad tiro badan oo soomaali ah oo dhalashada wadanka cumaan haysta waxaa la sheegaa dadka ku jooga booqashada ama deganaanshaha ku jooga ee baasaboorada ajaanibta wata sida maraykanka yurub ama baasaboorka soomaaliga wata iyo dadka u dhashay wadanka cumaan ee soomaalida ee baasaboorka cumaanka wata in ay badan yihiin sida la ii sheegay dadka haysta baasaboorka cumaaniyiinta ee wadankaasi u dhashay waxaa la ii sheegay gudoomiyaha ama gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka wadankaasi inuu yahay nin soomaali ah sidoo kale immigrationka ninka haysta ninka ku xiga waa soomaali sidoo kale amniga guud ee wadanka ama magaalada salaalah ayaan filaya in lagu yiri asna waa soomaali marka waa dareemi kartaa dad badan oo soomaali ah oo xilal waaweyn ka hayo ayaa jira wadankaasi sidoo kale waxaa jira salaadino soomaaliyeed oo wadankaasi aad looga tixgeliyo oo suldaan qaabuus bin taymuur oo ka dardaarmay oo ilaa ay hadda ku nool wadankaasi cumaan oo ka mid ah salaadinada waaweyn ee wadanka cumaan laga tixgeliyo guud ahaan gaar ahaan soomaalida haddaan intaas uga soo gudubno nolosha guud ee wadanka cumaan waxaan doonayaa hadda inaan ka hadlo xagga viisaha iyo sida lagu tegi karo anigoo weliba xoogga saari doono dadka soomaaliyeed ee haysta baasaboorada reer galbeedka sida yurub iyo weliba north america canada iyo maraykanka dadka wata ayaan xoogga saari doonaa dadkaasi waxay ablaay gareyn karaan 3 viisa oo kala duwan oo ay ku tegi karaan wadanka cumaan viisaha ugu horeeya waxa uu yahay tourist visa ama visitor visa ama visa booqasho iyo weliba viisaha kale oo la yiraahdo business visa ama istismar visa oo ah visa loogu talagalay ganacsatada iyo visa kale oo asna la yiraahdo family visa oo dadka ay ku degi karaan halkaasi si caruurtooda ay wax uga bartaan marka laakiin talooyinka ugu badan oo dadka cumaan degan ee Soomaaliyeed ay bixinayaan waxa weeye
in qof mas-uul ah ama aabihii ha ahaado ama hooyadii marka hore wadanka Cumaan inuu yimaado. Markuu yimaado uu apply gareeyo ama viisaha uu qaato la yiraahdo visitor visa oo airport laga siin doono, kabacdin xaaladda uu indhindheeyo. Haddii uu u bogana waxaa jira niman immigration ka shaqeeya oo la hire gareeyo oo xogaa lacag qaata, kuwaas ayaa ku soo saaraya markaasi family visa ama viisaha deganaanshaha oo qoyska Soomaaliyeed ay ku degi karaan wadanka Cumaan. Waxaana la ii sheegay in processkaasi runtii aad iyo aad u sahlan yahay oo una la mid ahayn sida Masar iyo waliba wadanka Malaysia oo laga yaabo waqti inuu qaato. Laakiin wadanka Cumaan waxaa la sheegay maadaama population-ku aad u yar yahay, zaxmadda ay yar tahay, immigration-kan uu nidaamsan yahay, in hal maalin gudahood lagu siin karo qoyskaasi viisaha deganaanshaha. Marka talada ugu muhiimsan oo dadka deegaanka ay bixinayaan waxay tahay in qof qoyska ka mid ah uu soo hormaro uu yimaado kabacdi uu apply gareeyo viisahaasi qoyska isagoo kaashanaya dadka immigration-ka waxa ka shaqeeya oo xogaa xafiisyo meesha kale xogaa yar qaata, kuwaas ayaana kuu soo saaraya. Marka viisaha ma kusii dheeraanayno maadaama uu aad u fudud yahay, waan kasii gudbaynaa. Waxaan doonayaa haddii aan u gudbo mowduuc runtii muhiim ah oo isleeyahay way habboon tahay qoys kastoo Soomaaliyeed inay ogaadaan intaanay u guurin wadan kastoo ay doonayaan inay u guuraan. Mowduucaasna wuxuu yahay maciishada guud ee wadanka Cumaan. Magaalada Salaalax ayaynu xoog ku saari doonaa muuqaalkan maadaama uu yahay ay tahay magaalada Salaalax magaalada ay ugu badan yihiin Soomaalida ay degan yihiin aniguna aan warbixinta ka hayo. Magaalada Masqat oo ah caasimadda wadankaasi haddii la barbar dhigo magaalada Salaalax in badanna waxaa raqiisan magaalada Salaalax ayaa raqiisan xagga maciishada. Xaafadaha ugu badan oo ay Soomaalida degan yihiin magaalada Salaalax ay ka degan yihiin waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin laba xaafadood. xaafad waxaa la yiraahdaa Muctaza ama Soomaaliduna waxay u yaqaanaan xaafadda Jaamac Ciise. Sidoo kale xaafad kale waxaa jirta la yiraahdo Market. Marka labadaas xaafadood ayay Soomaalidu inta badan magaalada Salaalax ka degan yihiin. Waxaana la sheegay inay yihiin xaafadaha ugu nolosha wanaagsan magaalada Salaalax guud ahaan. xaafadaasi waxaa la sheegay guri ka kooban ilaa 5 qol oo leh 3 suuli leh. Sidoo kale la sheegay inuu leeyahay labo fadhi ama labo living room iyo waliba jiko weyn iyo xaafadaha qaarkood waxay leeyihiin swimming pool ama meel lagu dabaasho oo qoyskaasi khaas u ah. Waxaa qiimihiisa lagu sheegay ilaa $400. Qoys waxaa degi kara markaasi ilaa 8 ruux ka kooban ayaa gurigaasi degi kara. Marka waa average. Waxaa laga yaabaa guryo ka qaalisan inay jiraan, laakiin waxaan ka hadlayaa guryaha ugu dadka caadiga ay degi karaan qiimihiisa intaas ayaa lagu sheegay. Inkastoo la sheegay guryo kale oo qaali ah ilaa 700 gaaraya inay jiraan, laakiin qoyska doonaya inuu nolol decent ah ku noolaado waxaa la sheegay qiimo $400 ah inuu ku heli karo guri 5 qol ka kooban. Marka haddii la barbar dhigo magaalooyinka Nairobi oo kale oo ognahay guryaha inay qaali yihiin, magaalada Salaalax runtii aad iyo aad ay raqiis u tahay. waana magaalo saan hore u sheegnay dee aad iyo aad nadiif u ah. amnigeedana uu yahay 100% haddii saq dhexe aad lugeynaysid oo $1 milyan gacanta ku wadatid cidtaa kusoo fiirinaysa aanay jirin. Adeega ama raashinka oo ay ku jiraan waxyaabihii guriga lagu nadiifinayay qoys ilaa 5 ruux ka kooban oo degan magaalada Salaalax ayaan tusaale usoo qaadanaynaaye waxaa la sheegaa $200 ilaa $300 bishii oo dhan inay ku filan tahay, iyadoo raashinkana lasoo adeegayo waxyaabihii supplieska ah guriga lagu nadiifinayna lasoo gadayo. Marka runtii marka la barbar dhigo wadamada reer galbeedka ee Soomaalida inta badan ka guurayaan iyaduna aad iyo aad ay raqiis u tahay. Wadanka Cumaan waxaa la isku raacay inuu kaalinta koowaad kaga jiro adduunka oo dhan xagga amniga, gaar ahaan wadamada ku xeeran ee dariska la ah. Marka waxaan soo gaarnay mowduucii aan kusoo gabagabeynayno muuqaalkan oo ah xagga waxbarashada. Aan isleeyahay waa mowduuc runtii muhiim ah. Qoysas Soomaaliyeedna wax walba u hurayaan in caruurtooda ay waxbarasho wanaagsan ay helaan. waxbarashada waxaan u kala qaadaynaa ilaa dhowr qaybood. Midda koowaad oo ah public schoolada oo ka kooban kindergarten ilaa iyo primary school waxay u yaqaanaan amaba high school, iyo waliba private schoolkii asna ka kooban isla intaas, iyo jaamacadaha iyo quraanka oo iyagana aan gooni ka dhigi doono. Haddii aan kusoo hormarno public schoolka wadanka Cumaan, markii qoyska Soomaalida tusaale ahaan waxaan usoo qaadanaynaa Mareykanka ka tegaya markay ay degaan oo ay fiisihii qoyska ay helaan, waxaa jirta in loo baahan yahay in ay warqad ogolaasho oo waxbarasho ay doontaan. warqadaas waxaa ku siinaysa wasaaradda waxbarashada, waxaana la sheegay inuu yahay mishwaar ah hal maalin kaliya. yacni xafiiska tagaysaa waxaa sheegaysaa in aad wadankan ku joogtid family visa oo aad degan tahay, caruurtaadana ay doonayaan inay iskuul aadaan. isla maalinkaas ayaa la sheegay in lagu siinayo warqadaasi waxbarashada. marka caruurtaada waxaad awoodaa inay aadaan iskuulka public ah oo ay dowladda leedahay, oo runtii la sheegay qofka hadduusan haysan baasboor Cumaani ah
in lacag aad iyo aad u tiro yar oo lagu sheegay $200 sanadkii oo dhan in qoyska uu bixinayo. marka iskuulkaasi wuxuu ku kooban yahay kindergarten ilaa iyo high school ayuu ku kooban yahay, maadooyin ilaa iyo 12 maado ah ayaa lagu baraa. sidoo kale waxaa la galaa 6 subaxnimo ilaa iyo 1:50 ayaa la galaa. iskuulka waxa uu leeyahay meesha raashinka carruurta laga siinayo ay inta badan iskuulada leeyihiin. sidoo kale iskuulada waxay leeyihiin clinic gooni u ah oo canuga hadduu yiraahdo mataqaana madaxa xanuunayo kale gurigan aadaya maya, meeshaas ayaa lagu daaweynayaa oo markaas looga warqabayaa si waxbarashada canugaasi aysan ooga baaqanin. maadooyinka inta badan waxaa lagu dhigaa wadankaasi luuqadda carabiga. sidoo kale waxaa jirta luuqad English ah oo iyadana xiisad gooni ah oo carruurta la siiyo ayaa jirta. sidoo kale haddii qoyska uu doonayo carruurtooda inay aadaan private school, waxaa jira private school tiro badan oo wadankaasi ku yaala oo curriculumka lagu dhigo public schoolada lagu dhigo ayaa jira. laakiin meeshii carabiga looga dhigayo public schoolka kan waxaa lagu dhigayaa English ayaa lagu dhigayaa. private schooladaasi waa qaali marka loo fiiriyo public schoolka oo sanadkii oo dhan $200 laga qaadayo canugii. laakiin midkan private-ka ah semesterkii ayaa waxaa la sheegay in carruurta laga qaado inta u dhaxayso $500 ilaa iyo $1000. marka waa dareemi kartaa farqiga u dhaxeeya. sababtan waxa keenaysa waxa waaye luuqadda Ingiriiska ayaa maadooyinka oo dhan lagu dhigaa private schoolka, halka public schoolka maadooyinka oo dhan lagu dhigo luuqadda carabiga marka laga reebo luuqadda Ingiriiska. marka runtii waxaan dhihi karnaa private schoolka aad iyo aad ayuu qaali u yahay. marka talada ugu wanaagsan oo ay dadka bixinaan waxaa weeyaan in carruurtaadii xoogga aad ku saartid inay luuqadda carabiga bartaan oo ay public schoolka aadaan, iyadoo luuqadda Ingiriiskana ay ka gooni tahay luuqadaha kale ee lagu dhiga. sidoo kale waxaa jira transportation free ah oo ilmaha guriga ka qaada ayaa jira. waxaana la aadaa iskuulka Axad ayuu bilowdaa. maalinka ugu horeysa iskuulka la aadayo waa Axad ilaa iyo Khamiis ayaa la aadaa. Jimcada iyo Sabtidana waa fasax. marka haddaan soo gudubno xagga jaamacadaha, wadanka Cumaan waxaa ku yaala jaamacado dhowr ah ayaa ku yaala. waxaan u kala qaadanaa jaamacadahana public iyo private ayaan u kala qaadanaa. waxaan ka hormarnaa marka jaamacadaha public-ga. jaamacadaha public-ga ah inta badan waxa ay bixiyaan sida la sheegay scholarship ayay bixiyaan. waxaana ka mid ah jaamacadda la yiraahdo Suldaan Qaboos University ayaa ka mid ah oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaala wadankaasi Cumaan. marka hadduu ardayga helo scholarship oo kale waxay xataa siinayaan pocket money oo semesterkii oo kale la siinayo ilaa $600. haddii laakiin ardayga aan scholarship helin oo uu doonayo inuu aado public schoolka oo passport ajnabi ah watana, semesterka waxaa laga qaadayaa lacag gaarayso ilaa iyo $1000 oo doolarka Mareykanka ah. sidoo kale wadanka Cumaan waxaa ku yaala jaamacado dhowr ah oo private ah, laakiin jaamacadahaasi runtii aad iyo aad ayay qaali u yihiin oo waxaa la sheegaa in qiimahooda uu aad iyo aad uga sarreeyo xataa marka loo fiiriyo jaamacadaha ku yaalo wadamada reer galbeedka. waxaynu ku xisi karnaa jaamacad la yiraahdo German University of Technology in Cumaan oo ka mid ah jaamacadaha xagga technology lagu barto ee ku yaala wadanka Cumaan. marka jaamacadaha ku yaala wadanka Cumaan ee private-ka runtii dadka deegaanka dhamaantood waxay isku raaceen inay runtii aad iyo aad qaali u yihiin. haddii laakiin scholarship aad ka heshid ama private university aad ka heshid ama public university aad ka heshid, adiga ayay lacag ku sii siinayaan. laakiin dadka baasaboorka Cumaaniska haysta jaamacadahaasi ee public ah waxay u yihiin free. aan usoo gudubno xagga diinta ama xagga qur-aanka. magaalada Salaalax ayaanu xooga saarayna saan hore u sheegnay. waxaa ku yaala madaaris tiro badan oo qur-aanka lagu barto. sidoo kale waxaa jira macallimiin guriga kugu imaanayo oo lacag aad iyo aad u yar sida la sheegay $100 ilaa $150 ka qaadanaya bishii oo dhan oo guriga kugu imaanayo. macallimiintaasna runtii aad ayaa loo amaanay oo qiraa'aadka kala duwan ee qur-aanka iyo tajwiidkeeba aad carruurta u baro, gurigana kugu imaanayo. marka macallimiinta inta badan saan ognahay maadaama Cumaan wadanka aad aan uga fogeyn, wadanka ayay ka yimaadaan. sidoo kale waxaa jira macallimiin tiro badan oo iyagana ku shaqaysta inay qoysaska guryaha ugu tagaan oo ay carruurta homework ka caawiyaan. sidoo kale carruurtana ay wax la yiraahdo tutoring u sameeyaan. macallimiintaas waxaa la sheegay inay u kala dhasheen wadamada Pakistan, India, Masar iyo waliba Urdun inay ugu badan yihiin. inkastoo la sheegay xataa inay jiraan macallimiin Soomaali ah. macallimiintaasi guriga ayay carruurta ugu imaanayaan. markay guriga carruurta ugu imaadaana waxay barayaan maado kasta oo carruurta qoyskaas la doonayaan inay wax ka bartaan. marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa. waxaan rajeynayaa mawduucan aan uga hadlayay wadanka Cumaan in wax badan ay ka faa'iideen. waxaan xooga saarnay haddii aan soo khulaaseeyo xagga nolosha guud ee wadankaasi. waxaan xooga saarnay xagga viisaha, xagga maciishada guud ee deegaanka iyo wax walba. waxaan sidoo kale xooga saarnay ama ka hadalnay
xagga waxbarashada oon isleeyahay waana mawduuc ugu muhiimsan oo qoysas badan ay doonayaan inay carruurtooda u raraan waddan islaam ama waddan muslim. marka waddanka xiga waxaan rajeynayaa inuu noqon doono waddanka Turkiga insha Allah tacaala. sidoo kale waxaan idinka raali garanayaa asxaabay maadaama halkan uu ku yimid barnaamijkan oo runtii aad iyo aad u xiiseynayseen ramadaankii daraadiis ayuuna halkan u galay. marka waxaan rajeynayaa waddanka xiga inuu noqon doono waddanka Turkiga ama waddan kale oo isleeyahay waa muhiim inay ogaadaan qoysaska Soomaaliyeed carruurtooda doonaya inay waddan muslim u raraan. marka haddii mawduucan ama muuqaalkan uu noqday mid ku anfacaya, fadlan la wadaag asxaabta kale ama qoysaska kale iyaguna si ay uga faa'iidaan oo faa'iidada aniga aan la doonayo adinkana inaad la raadisaan ayaan jeclaan lahaa. marka muuqaalkan ka kulmayno walaakin xasuuna idinkaga tagaa fi amaanillaah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.